السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا سيدة أركيسان به waxay caruurta ku jiraan agoonta bareegi xilliga ay wax cunayeen galabta 9 saac bar sidaad arki kartaan sawirada ka arki kartaan anagoo la fadhino la sheekaysanayno marka caruurta insha Allah loo soo dhawaado loo yimaado la soo booqdo iskuulka galabta laba shiiqana soo booqdeen oo meel dheer nooga yimideen alxamdulillah kalmadoodana waa arki doontaan annaguna markasta waa idin sheegnaa waan idin soo gudbinaa baahiyada aan qabno sida basaska oo kale in dhul waqafan la siiyo si aan iskuul uga dhisno caalamiyo kale baahid markasta oo iska badan tahay waana idin soo gudbi doonaa insha Allah nambarada aan nagala soo xiriiri kartaan markasta fiidiyowga dushiisa ay saaran yihiin insha Allah nala soo xiriiro agoonta waxaan la baro caafimaadkooda cuntadooda dharkooda si aan mustaqbalka aan mataqaana uga wada faa'iideyno caruurta hadii aan wax la barin annaga mataqaana caruurteennuna aan wax barno micna ma sameynayso waxa micna sameynaya waa in wax la wada bartaa caruurta dan yarta kuwa agoonta kulli waa inay wax wada bartaan mataqaana dad walaalo ah oo isgarab siiya ay noqdaan laakiin hadii aad ka fikirtid caruurtaada jaamacad caalami ah u raadisid kuwa agoonta iyo dan yarta wadanka joogana aadan mataqaana aadan ka fikirin caruurtaada waxa ay barteen micna ma sameynayso waxba kuma sameynayso aakhirana ilaahay wuu ku weydiinayaa mataqaana wixii lagu siiyay iyo caruurtii lagu siiyay iyo sidaad uga faa'iideysatay marka insha Allah waa waajibna wada saaran annagu in kama xigno magacooda ma naqaano qabiil meesha kuma joogaan iyo magac wuxuu ku joogaan ilaahay dartiisa ayaan mataqaana aan waqtigeena iyo maalkeena aan ugu hornay adinkana sidoo kale aad ka rajaynaynaa meel kasta aad joogtaan waxaan ka codsanaynaa inaad nala soo xiriirtaan hawshan qayb aad ka naqataan lama kala xigo dhamaan caruurtan inay waxa dhici karta abtiga iyo ayeeyada ay dhaleen ama aad adeer ama abti u tahay annagu ma naqaano meel kasta aad joogto fadlan nala soo xiriir hal agoon kafaalaqaad ugu yaraan maalintii waa $1 bishii waa $30 waxaad bixi kartaa 3 bilood $90 6 bilood waxaad bixi kartaa $180 ama sanadkii $360 fadlan hadii aadan awoodin ugu yaraan hal agoon inaad kafaalaqaadid ugu yaraan waxaad awoodaa in aad wax uun bixiso waxa dhici karta inaad hanti leedahay oo aad saka dhiibtid sakada aad meel aan mudnayn aad ku bixisid meeshan waa meesha ugu mudan dhaqaale badan loo baahan yahay caruurta meel dheer ka soo lugeeyaan waxay u baahan yihiin nafaqooyin u baahan yihiin wax badan u baahan yihiin insha Allah iyo mustaqbalka si aan iskuul aan anagu leenahay aan u dhisno gurigan aan inta ma nagala bixi karaa guri kira ah waa intaad u jeedaan marka insha Allah waxaan nala soo garab istaago agoonta hal caawiyo annaga waxba yaan mataqaana shakhsiyan loogu danaynin insha Allah waa arrin waajib oo wada saaran insha Allah waxaan idin ka rajaynaynaa codsiyadeena markasta inaad ka jawaabtaan wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood $180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa